بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa nasiib darra ah waqtigan hadda la joogo Soomaaliya raadinayso inay dib u heshiisiiso ummadeeda dhibaatadii la soo maray in laga baxo in maanta gobolkii aan islahayn waa ugu nabad jecel yahay waa ugu nabdoonaa in uu dagaal ka socdo gobolkaas waa gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo taasoo sida wararka nagu soo gaarayaan dad badan oo aruura dhalinyaro ah odayaal ah iyo ganacsato waxaasoo dhan lagu laayay oo ay leysay ciidamo ka socda dowlad goboleedka Puntland. dagaalkaas uu kama dhexeeyo qabaa'ilka meesha degan sida nala ku warramay wuxuu ka dhexeeyaa maamulka dowlad goboleedka Puntland iyo dad degan magaalada Gaalkacyo kuwaasoo dowlad goboleedku ay u aragto inay yihiin al-qaa'ida iyo shabaab iyo al-qaa'ida ma joogaan Gaalkacyo hadday joogaan dowladda hore ugu warqabtay taasna maaha. arrintaas waxay wadaa in maanta Soomaaliya civil warkii ay ka baxday muddo aan islahayn civil warkaas oo dib u dhac ku riday ummadeeda maantana hadda kuwa badan ay inay ka soo baxaan la filayay iyadoo hormood u ahayd degenaanshada Soomaaliya ee la filayay inay noqoto hogaamintii maamulayaasha gobolada in dowladdii shacbiga ka soo baxday inay dad ku layso magaalada Gaalkacyo taas waa nasiib darro waxayna ka turjumaysaa in maamulka sare oo Puntland uusan garan ujeedadoodii mas-uuliyaddii ay ka ahaayeen shacbiga mas-uulka ay ka ahaayeen in la laayo hadday garanayaan dowladdu waxay ka timaadaa shacbiga iyo dowladdu u shaqaysaa canshuurta laga qaado ay ku shaqaysaa marka haddii dadkii layso de waxaan umaleynaya iyada ruuxeedu ma socon doonto taasuna waxay keeni doontaa inay iska bedelaan markii dowlad soconaysa ma jirto. haddii madaxweynaha gobolku iyo maamulkiisa oo dowladda iyo baarlamaankiisu haddii ay wax ka qaban waayaan hawshaas waxaan umaleynayaa inay sii fogaanayso. waxaan leeyahay anigu qof ahaantayda anigoo u arka intaasu inay aada iyo aada ceeb ugu tahay maamulkaas dadka meesha deganna ay dhibaato ku tahay in deg deg loo joojiyo dagaalkaas in wixii meesha ka dhacay sidii nidaamku ahaa laga heshiiyo in odayaasha salaadiinta oday dhaqameedka waxgaradka dhalinyarada iyo hooyooyinka waxaasoo dhan ay dhinac ka istaagaan oo problemkaa la xaliyo. waana filayaa sidii caadigu ahaan jiray haddii wax ka dhacaan gobolka Mudug in la xaliyo waan filayaa marka arrintaas waxaan leenahay deg deg dagaalka loo joojiyo deg deg loo dib nabadii loogu soo celiyo gobolka deg deg wixii dhibaato gaaray loo xaliyo sidaasaan leenahay waana mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan anigoo ah Cabdikariim aw cali Umar waxaan aad uga xumahay inaanu maqalay dagaalka laga maarmi karo oo aan macnaha lahayn ee ka socda magaalada Gaalkacyo. waa nasiib darro dad Soomaaliyeed inay isku laayaan dhig Soomaalida ku daato magaalada Gaalkacyo. warka in la laalaabo ma fiicna ama laga raahdo runta waxaa weeye mas-uuliyadda dagaalka ka dhacay Gaalkacyo waxaa iska leh maamulka Puntland oo madaxda ka yahay ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Faroole in dad shacbi ah oo asagoo mas-uul ka yahay loo soo qaatay taangiyada lagu laayo waxaa weeye waa waxaan hore loo arag ana waafaqsanayn nidaamka adduunka. sidaa awgeed waxaanu anigu qof ahaan aada uga xumahay dhibashada boobka dhaca ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaana mas-uuliyaddaas iska leh saan hore u xusay maamulka Puntland. waxaan cambaareynayaa falkaas
waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool adduunka in waxaasu ay maalin walba dhacaan. ninka la yidhaaho Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha Puntland wuxuu xalaalsaday inuu shacbiga Soomaaliyeed dhiiggiisa daadiyo. mana aha wax cusub hadda tii horreysay maaha. hore wuxuu dad ugu laayay meesha la yidhaaho galgale oo dad hoos yimaada ama ka tirsan maamulkiisa Puntland. wuxuu ku fiirsaday dad shacbiga lagu leynahayo meesha la yidhaaho lagu laayay waqooyi galbeed isagoo sheeganahaya dadkaas inay ka tirsan yihiin Puntland. wuxuu iibsadaa shacbiga Soomaaliyeed u dhiibaa cadowga Soomaaliyeed maxarada intuu qabqabto uu yiraahdo waxa weeye waa ama waa al-Qaa'ida ama waa ONLF. waa nin u soo taagan inuu ka shaqeeyo isaga maamulkiisa dhibaato dhaxdhigo ummadda Soomaaliyeed. marka waxaanu leeyahay saxdu leeyahay waa inuu kala baxaa isaga iyo maamulkiisa ciidamada ay ku jira magaalada Galkacyo oo dibaabadaha iyo taangiyada leh. waa inuu kala baxaa magaalada. dhimashada iyo dhacayna isaga iyo maamulkiisa mas'uulka ah. taa markaan ka dago waxaa leeyahay dagaalka sida ugu dhaqasaa badan waa in la joojiyaa. shacbiga Soomaaliyeed ku naqan magaalada Galkacyo waa in loo soo celiyaa nabadoodii. mas-uuliyadda nabadda iyo inay nabad ku noolaadaan waxaa mas-uul ka ah maamulka Puntland oo sheegtay inay u yihiin dawlad. waxaan kusoo xirayaa marka waa nasiib darro dhacday. waxaan rajeynayaa odayaasha salaadiinta waxgaradka Puntland guud ahaan in la raadiyo nabad lagana baxo dhibaatada hadda lagu jiro. aan la suginna in maamulkaanu wax u taro uu ka yahay ninka la yidhaaho Cabdiraxmaan Faroole inuu nabad kusoo dabaalo. sababta mashaakilku waa isaga iyo maamulkiisa. sidaa awgeed waxaan kula talinayaa odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada ama ha joogaan dalka dibadiisa dadka la yidhahdo diasporada ama ha joogaan gobolka Puntland. waxaan kula talinayaa inay nabadda raadiyaan laga baxo dadka ummadda Soomaaliyeed walaalaha ee isku dhimanaysa in la joojiyo dagaalka. in mar labaad waxaan ku celinayaa inuu sida ugu dhaqsaha badan ayadoon shuruud lahayn maamulka Puntland uu kala baxaa ciidamadiisa magaalada Galkacyo kuna soo dabaalaa magaalada nabadgelyo. waa mahadsantiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. anigoo Ibrahim Yusuf Faarax kuna mid dadka ku nool magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka. waxaan si aad iyo aad uga tiiraanyeysnahay ogana naxay dhibaatada laga soo sheegay gobolka Mudug magaalada Galkacyo. waxaan halkeer jeclahay inaan baaqayga uga gudbiyo dadka waxgaradka oo odayaasha oo dhaqanka oo salaadiin leh oo aqoon-yahano leh ama included markii lagu daro qurba joogta ku abtirsato gobolada Puntland in aysan maanta wax la fiirsado aysan ahayn dhibaatada meesha ka dhacdo. waxaan xasuusinayaa wiiga ka hor in loo dabaaldegahayay sanad guuradii 13aad ee ka soo wareegtay dhisitaankii iyo hirgelintii iyo nabaddii iyo dowladnimadii laga aas-aasay gobolada Puntland. maanta oo ciiddii aanu ciidnay in Galkacyo dhiig looga ciido waa wax laga naxo waana wax laga xumaado. waanu garan karnaa dadku inaysan arrintaas ayada raalli ka wada ahayn. goboladaas ayaga sida caadada ahaan jirtay ama Soomaaliduba ay ku taqaano waa dad maalin walbaba dhibaato ay ka dhacdo. waana dad yaqaano dhibku markuu yimaado wadada ku habboon oo wax lagu xalliyo in ay maraan. waxaan aniga aad u dhibsaday anna jeclaan lahaa dadka salaadiinta in ay wax ka qabtaan mar walba oo dhib uu dhaco. maamulka Puntland wuxuu caadaystay iyada oo dadka dagaalamaya ama dhibku dhex maraya shacbiga gobolada Puntland ku abtirsan yahay ay yihiin in sumada kaleeto iyo waxyaalo maaragtay aanan jirin lagu abuuro. arrintaas ayada waa arrin calqalad ku noqon karto qaabkii wax loo xallin lahaa. in shacbiga sumada loo yeelo ama waa al-Qaa'ido ama waa nimanka afka duuban la yiraaho waa arrin maslaxadda iyo dariiqii odayaasha dhaqanka ay yaqaaneen oo ay wax marin lahaayeen ama xeerarka u yaalay ka wajahan weeye. marka maamulka Puntland mas'uuliyiintiisu inay erayadaas
shacbiga u isticmaasho waa wax ayagana aan sharafkooda ku habboonayn shacbigana uusan raalli ka noqon karin dhibku waa dhacaa maalin walbabana wuu dhici doonaa dagaalkaana ma aha kii ugu horreeyey oo gobollada puntland ka dhaco waxaan ilaahay ka codsanaynaa kii ugu dambeeyey inuu noqdo waa iska jecelnahay marka anigu waxaan dhiiri gelinhayaa dhammaan qurba joogta iyo waxgaradka dadka ku abtirsado gobollada puntland erayadaas iyada oo xanafta leh oo dadka ehelka aanan kala qabanin maamulkana uu isticmaalay in horta marka hore xalka dariiqa loo marahayay sharaysaa ee arrintaas iyada ah meel in looga soo wada jeesto mas-uuliyiinta isticmaasheen ee ereygaas isaga ah lagu cambaareeyo ama lagu eedeeyo waxaan kaleeto oon soo dhaweynhayaa dadka u taagan nabadda in ay talada ka bilaabaan in ciidamada ka yimid maamulada kore oo puntland dhibka weynna meesha ka geystay awoodda sare iyo gacanta sare oo gaalkacyo oo dhanba aysan qaadi karin iyo culayskaas in magaalada laga qaado nabadgelyadana loo daayo booliiska gaalkacyo horey u joogay oo maamulka puntland asagaba ka tirsan iyo odayaasha deegaanka intaas iyada ah waxaan jeclahay in ay noqoto arrin ummaddu ay isla garato nabad baa ummadda wada deeqdo aflagaadada iyo maaragtay erayada aanan ku habboonayna colaadda unbay sii fogaynhayaan marka waxaan ugu baaqahayaa dadkaas midnimadoodii iyo walaaltinimadoodii iyo xeerkoodii in ay maaragtay arrimahooda ku xallistaan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yahay salawaan sheekh maxamed waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo dagaalka haddeer ka soo cusboonaaday gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee macno darrada ah ugu horey waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedka maamulka puntland waxgaradka goboladaas iyo ummadda soomaaliyeedba in ay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaalka macno darrada ah iyo dhimashada dadka iyo burburka hantida marka xiga waxaan u tacsiyadaynayaa dadkii soomaaliyeed ee ku naf waayey iyo eheladoodii mar saddexaadka waxaan ugu baaqaynaa dowlad goboleedka puntland in ay tahay mas-uuliyaddeeda in shacabka ay nabad u keento laakiin inaanay ahayn in ciidamada dowlad goboleedka puntland ay adeegsadaan taangiyo iyagoo aan u adeegsan cadow banaanka kaga yimi haddii dowladda puntland rabto inay xoog adeegsato qaybo badan oo gobollada puntland ah ayaa gacanteeda ka baxay ama siyaasad xumo ha ahaato ama itaal darraba ha ahaatee waxaa loo baahnaa inay kuwaa ka daba tagto laakiin looma baahnayn inay shacbigii sii kala burburiso mas-uuliyadduna waxa weeye cid walba way saaran tahay laakiin si gaara waxay u taabanaysaa cidda xilka ka haysa oo ah madaxweynaha cabdiraxmaan faroole golihiisa wasiirada saraakiisha ciidamada baarlamaanka iyo cid kastoo ka mid a dowladdiisa waxaanu ugu baaqaynaa inay dagaalkaas soo afjiraan waxaanu cambaaraynaynaa oo aan ka mid ahay dadka aada u cambaaraynaya in dagaalkaasi sii socdo iyo inuu dhaco labadaba gunaanadkii waxaanu kusoo gabagabaynaynaa ummadda joogta gobolladaas oo dhan waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan nabadda dagaalka in la joojiyo labada dhinacba wixii xal ah in la isugu yimaado soomaalidu waana isdishaa waana heshiisaa garowe waxay ahayd meeshii la rabay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ee soomaaliyeed ee dhowaan la rabo in UN-ku ay u qabtaan haddii qaybo ka mid a dhulkii dagaal ka socdaan oo magaaladii gaalkacyood shacbigeedii dagaalkii uu iyadii dusha ka haysto oo burburkii iyo barakacii iyo wixiiba ay meesha ku socdaan in arrinkaasi arrin fool xun weeye midda kale waxaa jirta cabasho badan oo kasoo yeedhisha shacbiga soomaaliyeed ee kala duwan oo lagaga cabanayo maamulka dowlad goboleedka puntland in ay dad badan oo soomaaliyeed dhibaato u geystaan oo degan maamul goboleedka puntland magaalooyin kamid a cabashooyinkaa iyo dagaalkan marka la isu geeyo waxay meesha ka saarayaan inay tahay dowlad dadku leeyahay laakiin waxay meesha soo gelinaysaa mas-uuliyad xumo weyn oo u taalla cidda mas-uulka ka ah dowladda waxaan kusoo gabagabaynayaa dagaalka ha la joojiyo xal nabadeed ha la raadiyo ummaddana barakac ah laga daayo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu